jaamacadda Timacadde farciida magaalada Wajaale ayaa habeennimadii xalay toola ahayd munaasabad dhiirigelin u qabatay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Timacadde. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Timacadde, maamulka degmadaasi Wajaale iyo qaar ka mid ah ardaydii jaamacadda Timacadde. Ugu dambeyntii ardayda jaamacadda Timacadde ayaa macallimiinta ku maamusay shahaado sharaf. مسؤولينتي halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii maadaama ay yihiin ardaydani dufcadii ugu horeysay ee Wajaale dhexdeeda waxbarasho loogu bilaabo isla markaana ah dufcadii ugu horeysay oo ku dhex qalin jabinaysa maanta hoolka Makram Mukarrama xafladoodiina aanu fadhino ardaydaas waxay nala joogeen muddo 3 sano ah waxayna dhameysteen waxbarashadii ugu horeysay كلي أي كم وقت واحد تيجي دونان جبلي أو حفلة دوين أي كقيب قاعدين دونان لكن واحد رجينا يا جود أهان أرضنا ما دام يهين أرضي وهو رئيسي واحد كلا أو جامعة بحسه أما كبحة وفكرتيا أدو بدن لكن فكرتيا ذي كصعدة وحويا لو فكر أو بي أي تي لو فكر كمان تقلي تبيني أو نيرسنا إيه هو public health أفرتا كلية دوي الصعدان كلية كلنا ورجين نادي لهذا إن السنة كأي بلعمان أرضنا يدد كبا دمان تدو حنلا هاي أما أنا وهذا كأن ديرينين أرضنا وحبرتها يكوا شقيستوا أديكوا شقيسنا يا أياد وحبران كرتها وحنشعل هاي إن هذا أرضنا لما يستطيع وحبرشدو دي إن أنا هنبليه وحبرشدو هاي لما يستين iyadoo ay tahay soo dhaweynta sagootinka ayaan u jeedaa ardaydaasi iyo soo dhaweynta ardayda cusub waayo waxaan filayaa arday badan oo ardaydii foorfoorka oo kulli meesha fadhidaan way jiraan marka iyagana soo dhaweyntoodu meesha way ku jirtaa runtii ardaydu dhiirigelin ay way maxay maanta xafladani oo aynu dhiirigelinayno ardayda micnihii dhamaysatay waxbarashadoodii iyagoo ka dhamaysanaya campuskan ku yaala Wajaale laakiinse markay noqoto qalinjabintu waqti bay leedahay marka tan waa si hordhac weey qalinjabintuna waxay ka dhici doontaa campuska weyn ee jaamacadda Timacadde magaalada Gabiley ujeedooyinka jaamacadda Timacadde loo aasaasay waxay ahayd inay kor u qaado waxbarashada sare ee gobolka ilaa hadda waxa ka qalin jabiyay 6 dufcadood oo ilaahay loogu mahadiyo adduunyada shayga ugu qaalisan horta waa amaanka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray allahumma inna nas'aluka al-amna wal iimaan ilaahay waxaan ku weydiisanay amni iyo iimaan waayo shayga hadii amni la waayo cibaadada socon mayso waxbarasho socon mayso guri la dhiso iyo qoys la dhisaa socon maayo shayga horta ugu muhiimsan waa amaan waan ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu mahadnaqno talabaad waxaan idinku dardaarayaa talabaadna waxaan in meel kastoo nimaadna in isku dardaarno alla ka cabsi waayo waxaan nahay dad islaam ah boqolkiiba boqolaa ruuxaantii jaamacadda Timacadde marxalado badan bay soo martay maalintii la aasaasay ee gobolka laga aasaasay marxalado badan bay soo martay juhdi badan ayay geliyeen Dr. Cismaan iyo waxa weeye barasaabkii ugu horeeyay gobolka Gabiley Master Xabiib cidii joogtay ayaa joogtay juhdi badan ayay geliyeen rag badan ayaa lahaa markaasi jaamacadda gobolkaasi Timacadde ma soconayso laakiin maanta miradhalkeega waynu arkaynaa gudoomiyuhuna si fiican buu inoogu sharaxay waxa weeye inta yaanihi ka qalin jabisay aqoonyaha ka gobolka markuu kaco miradhalkeegu waa sano kala weey aad baan ruuxaantii waan inaynu ka soo qayb galno xafladan aanu ku sii sabootinayno ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Timacadde farciga Wajaale ardaydan oo ahayd ardaydii u horeysay ee Wajaale intay waxbarasho ku bilaabaan haddana Wajaale waxbarashadii ku dhamaysta
run ahaantii waxay kaga duwan yihiin ardaydii hore ee qalinjabisay qaar baa gebila tegi jiray laakiin ardaydan maanta qalinjabinaysa ilaa iyo intay dhiganayeen waxaan ugu iman jirnay macallimiin ahaan iyo maamul ahaanba degmadooda Wajaale ayaan ugu iman jirnay. Khadar Cabdi Cabdilaahi, telefishinka caalamiga Somali News, degmada Tog Wajaale.